السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى كلنتي وعن وناكسن داوديال إدلهان تيمبا ميل والبدا دون كوغا سوغانتهين كسو دوادا وراركينا اي وربحنا دينا او عادكو داوان دونتان بدوين يوتيوب وراركا اي وربحنا دا وحا idin soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdirashiid qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Muuse Biixi oo dalab culus u soo diray maamulka Puntland kuna dhawaaqay arrimo xasaasi ah madaxweyne lafta garan oo ku dhawaaqay arrimo lama filaan ah iyo walaac xoogan oo ka dhashay madaxweyne Dani iyo ra'iisul wasaare Khayre oo ka dhex taagan tahay haddaba sababtu maxay tahay dhanka kale warbixin ayaan kaga haynaa halka uu ku dambeeyay xiisadii u dhaxaysay wadamada Iran iyo Mareykanka iyo waliba qaramada midoobay oo ka digtay musiibo bini aadamnimo oo ka dhalan karta dagaalada Suuriya intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoon balse haddii aad ku cusub tahay YouTube-keena subscribe deh gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka koobaad ee daawada wararkeena iyo warbixinada waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19 May 2019 warkeeniyo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda iska madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xalay hadal ka jeediyay munaasabad casho ahayd laguna xusayay munaasabada 18 May oo ay ku asteysneen 28 sano guuradii ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaalida inteeda kale ayaa baaq nabadeed u diray maamulka Puntland oo muddo ay ku dagaalamayeen gobolada Sool iyo Sanaag Muuse Biixi oo baaqiisa marqaati uga dhigay waxgaradka aqoon-yahanada iyo salaadiinta reer Somaliland ayaa sheegay in marka hore uu nabad iyo wada noolaansho ugu baaqayo wadamada ay dariska yihiin oo sida uu sheegay Soomaaliya ugu horeyso si gaarana maamulka Puntland oo ay soodin wadaagaan ay ugu baaqay wada noolaansho iyo in dagaalka loo bedelo wax wada qabsi iyo iskaashi dhexmara Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in haatan diyaar u yihiin inay sii daayaan maxaabiista uu sheegay in Puntland ay uga qabsadeen dagaalkii ku dhexmaray deegaanada Tukaraq ee gobolka Sool si lamidana uu Puntland ka rajeynayo in ay tilaabadaas la qaataan una sii daayaan maxaabiista ay ka haystaan oo uu sheegay in aysan xaq u lahayn in xabsiyada lagu sii hayo dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay xaaladaha guud ahaan ee ka jira deegaanada maamulkaasi ugu horeyn lafta garan waxa uu ka hadlay qarax ka dhacay degmada Bardaale oo xubno maamulkiisa ka tirsan ay ku dhinteen waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay qaraxaasi oo saraakiil ay ku dhinteen madaxweyne lafta garan ayaa sheegay in dadka koonfur galbeed ay dhibaato kala kulmaan qawaarijta al-shabaab taasi ay ku qasbayso inay diyaariyaan jawaabo ka dhan ah al-shabaab saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ayuu ugu baaqay inay galaan feejignaan iyo heegan ay kaga hortagayaan weerarada al-shabaab qorsheynayaan inay ka fuliyaan deegaanada maamulkaasi dagaal ayuu ku baaqay in lala galo ururka al-shabaab oo ka dagaalama deegaanada koonfur galbeed isagoo sheegay in guud ahaan ciidamada iyo maamulada degmooyinka inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab waxaan ugu baaqayaa ciidamada in meel kasto ay joogaan sidii looga hortagi lahaa dhagar qabayaasha isku diyaariyaan sidii meel kasto ay joogaan loogu tagi lahaa ayaan kula dardaarmayaa waa inay heegan galaan oo ay ka feejignaadaan dhagarta al-shabaab ayuu yiri madaxweyne lafta garan qarax ka dhacay degmada Bardaale ayaa waxa ku geeriyooday Kabtan Fallar Liban Nuurow oo kamid ah golaha deegaanka degmada Bardaale halka ay ku dhaawacmeen 3 askari oo kale oo ay ku jiro sargaal ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Maxamed Sheekh Mukhtaar waa hagaag dawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa badweyn tube Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si adag uga carooday hadalkii ka soo baxay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ku aadanaa imtixaanka dugsiyada Puntland wasiirka waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inuu fashilmay imtixaankii Puntland oo shalay si rasmi ah loo daafuray isagoo yiri imtixaan waa fashilmaa saacadan la joogo Puntland imtixaanka qaaday wuu fashilmay
hadalka wasiir goodax ayaa sida la sheegay aada uga yaabiyey ugana caraysiyey madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni maadaama aysan jirin inta la ogyahay imtixaan fashilmay oo baahay. madaxweyne Deni ayaa la sheegay inuu xiriir degdeg ah la sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre kana dalbaday in wasiir goodax sharaxaad buuxda ka bixiyo hadalkiisa dhaawac xooggan oo ku yahay sharafta imtixaanka Puntland. madaxweyne Deni ayaa sida la sheegay hadalka goodax u arka mid ku talagal ah laguna dhaawacay imtixaanka Puntland maadaama Puntland kaga guuleysatay goodax doodii horay u dhexmartay labada dhinac kadib markii Puntland diiday inay qayb ka noqoto imtixaanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Puntland oo markii ugu horeysay ku dooday inaysan aamini karin hanaanka dawladda Soomaaliya ayaa warkeedu rumoomay kadib markii uu fashilmay imtixaanka dawladda Soomaaliya ay qaadaysay oo suuqyada laga helay waxaana hadalka goodax loo arkay mid lagu xumeynayo maamulka Puntland. daawadayaal waxaan bartanka uga jirnaa wararkeena iyo warbixinadeena aad ku daawanayseen badweyntu haddaba subscribe deh kambalelkana ha hilmaamin si ay ku soo gaaraan wararkeena iyo warbixinadeena mar walba iyo had walba. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sheegay inuusan rumaysnayn in dagaal uu ku qarxi doono gobolka xilli uu jiro walaac laga qabo xiisadda sii kordhaysa ee dalkiisa uu kala dhaxeeyo waddanka Mareykanka. Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu warbaahinta qaranka dalkiisa ee Iiraan u sheegay in Tehran aynan dagaal doonaynin uusan jirin dal ku fakaraya inuu Iiraan dagaal kaga hortago. Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu maraakiib iyo diyaarado dagaal u geeyay gacanka taasoo lagu tilmaamayo in looga gol leeyahay halista Iiraan. hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado wax walba oo colaad keeni kara. isagoo la hadlayay Irna markii uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay Shiinaha maalintii Sabtida ayuu Mr. Zarif waxa uu sheegay in Trump uusan dagaal doonin hase yeeshee dadku xeeran ay ku riixayaan dagaalka iyagoo isticmaalaya orahda ah Mareykanka aanu ka dhigno mid ka awood badan Iiraan. waxa uu intaas ku daray wax dagaal ah ma uu jiri doono sababtoo ah annagu dagaal ma doonayno qof maanka ku hayana ma jiro fikradda ah in colaad loogala hortago Iiraan. xiisadahan ugu dambeeyay ee ka dhaxeeya labadan dal ayaa imaanaya kadib markii ay Iiraan joojisay waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii caalamiga ah ee nukliyeerka sidoo kalena ay ku goodisay inay dib u bilaabi doonto barnaamijka ay ku kobcinayso uraniumkeeda. heshiiskii 2015 ayaa waxaa loo ogolaa in Iiraan laga qaado cunaqabataynta taabadelkeedna ay soo afjaraan barnaamijkeeda nukliyeerka. hase yeeshee Mareykanka ayaa sanadkii tagay isaga baxay heshiiskaasi iyadoo cunaqabatayn cusubna uu ku soo rogay dalkaasi. Mareykanka ayaa waxa uu gacanka geeyay maraakiib iyo diyaarado dagaal waxa uuna amray in shaqaalaha aan sida degdeg ah looga baahnayn Ciraaq ee ku sugan dalkaasi ay isaga soo baxaan isagoo sheegay inay jiraan warar sheegaya suurtagalnimada halista ciidamada Mareykanka kaga iman karta waddanka Iiraan. baarayaasha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay bilowgii bishan Iiraan ku eedeeyeen ama kooxaha ay biritaartay inay walxaha qarxa u adeegsadaan inay ku waxyeeleeyaan maraakiibta shidaalka qaada ee ka baxa isku tagga Imaaraadka Carabta. Tehran ayaa iska fogeysay eedahaasi xilli hogaamiyaasha labada dal ay ku adkeysanayaan inaynan dagaal doonaynin ayaa haddana xiisadaha ka taagan gacanka ayaa weli yihiin kuwa sareeya. diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa Sabtidii ka digay in diyaaradaha ganacsiga ee halkaasi maraya ay halis ugu jiraan in si khaldan loo aqoonsado. sidoo kale wararka inoo harayna waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa ka digtay in musiibo bini'aadanimo ay ka soo socoto gobolka dhaca waqooyi galbeed Syria ee Idlib iyadoo reer galbeedka ay isku dayayaan inay ku cadaadiyaan Ruushka iyo Syria inay damaanad qaadaan inay joojiyaan weerarada lala beegsanayo iskuulada iyo xarumaha caafimaadka. isku xiraha arrimaha bini'aadanimada Mark Locke isagoo ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu sheegay inay jiraan walaac ka dhashay xaaladaha Idlib taasoo ay soo tarayeen muddooyinkii u dambeeyay.
bishii Sebtembar xogayaha qaramada midoobeed waxa uu ku adkeeyay inay muhiim tahay in laga fogaado in dagaal weyn uu ka dhaco Idlib. waxa uu sidoo kale ka digay in xariga ay goostaan dhibaatooyin waaweyn oo abil laga arag Syria ayuu yiri Mark Lowcock. qaramada midoobay ayaa ka digtay in 3 milyan oo shacab ah inay khatar ugu jiraan iyadoo ciidamada madaxweyne Bashir al-Assad ee Ruushku taageeray ay guluf ka bilaabaan. musiibo ayaa ka dhici karta meelaha ay dagaaladu ku wajahan yihiin, sidoo kale dadku ma aysan helin kaalmo ku filan si ay qaxa ugu adkaystaan. dambeyn xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ku dhawaaqay in si degdeg ah looga saaro Soomaaliya ciidamada Kenya. xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay soo noqnoqonayeen gobol-falada ay geysanayaan ciidamada Kenya. shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya. xildhibaan Daahir Amiin Jesow ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in gabi ahaanba ciidamada Kenya laga saaro gudaha dalka Soomaaliya iyadoo loo marayo taliska AMISOM ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jesow ayaa carabka ku dhuftay in burburinta lagu hayo xarumaha shirkadaha Hormuud ee laga leeyahay dana ganacsi si kor loogu qaado ganacsiga shirkadda Safaricom ee laga leeyahay dalka Kenya. ugu dambeyn xildhibaan Daahir Amiin Jesow ayaa ku eedeeyay maamulka Jubbaland in ay indhaha ka laabanayaan wax ka qabashada dhibaatooyinka soo laabtay oo ay geysanayaan ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya. ciidamada wadanka Kenya ayaa inta badan ka howlgala Jubbooyinka iyo waliba gobolka Gedo ayagoo inta badan lagu eedeeyo gobol-falada dadka iyo waliba ganacsigooda, iyadoo dadka rayidka ee ku dhaqan gobolka Gedo ay walaac xoogan ka muujiyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Kenya. ayaa haddana waxaan jirin dowladda Soomaaliya inaysan ka hadlin dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gedo. ma ahan markii ugu horeysay ee ciidamada Kenya dhibaatooyin ay u geystaan shirkadaha ganacsiga ee Hormuud iyo waliba dadka shacabka ee waxaa jira dhibaatooyin hore oo inta badan ay geystaan ciidamada Kenya ee ka howlgala gudaha wadanka Soomaaliya kana mid ah ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga wadanka Soomaaliya. inta badan baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad ugu dhaliila xukuumadda federaalka Soomaaliya inaysan ka hadlin gobol-falada ciidamada Kenya ay ka geystaan gudaha Soomaaliya, iyadoo walaac xoogan iyo qayladaan ay shacabka Soomaaliyeed ka muujinayaan joogitaanka ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya. daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena iyo warbixinadeena. mar walba la soco wararkeena iyo warbixinadeena kana daawo kuna xirnow badweyn tube subscribe hana hilmaamin